gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriso gudoomiye ku-xigeenada gobolka iyo xogayaha guud ee maamul gobolka Banaadir ayaa caawa kulan afur ah xaafadda kalluunka ee degmada Waaberi kula qaatay shacabka xaafadaasi ku nool iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaasha degmooyinka qaybta weli oo cadde iyo mas'uuliyiin kale. ujeedka kulankani afurka ah ayaa ahaa mid uu maamul gobolka Banaadir ugu kuurgalayay arrimaha amniga iyo horumarinta hoos u daadejinta dowladnimada, waxayna shacabku ay ahaayeen kuwa aad ugu faraxsan in madaxdoodii oo aan laga ilaalinaynin ay la kulmaan weliba ugu yimid xaafadii ay ku noolaayeen. Cabdi Cali oo ka mid ah odayaasha xaafadda kalluunka ee degmada Waaberi ayaa tilmaamay in arrintani ay wax weyn ka bedelayso sawirka laga bixiyo madaxda iyo shacabkooda. sharaf weyn bay noo tahay mar kaleeto aad baan ugu faraxsanahay noo timaadaan, waan soo dhaweynaynaa, waan ku faraxsanahay, sharaf weyn bay noo tahay. dadka qaar waxay yiraahdaan magaranaysaa dawladdu meesha ay tagto walaal ka dhacayso wada qarxanay dadku baqayaan ilaahay baa laga baqay makhluuq weys waxa uu dilaan xanab dilaan maxamed nooleeyaan. Ayuub Abshir Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba, horeyna uma haysan gaadiid ka caawiya in uu gaaro meelaha uu u baahan yahay sida waxbarashada. hase ahaatee gudoomiye Tuulax oo ka damqaday daruufaha haysta Ayuub waxa uu siiyay gaadiidka loogu talagalay dadka naafada ah. ruxuleenta gobolka Banaadir Tuulax marna anuu duurduurina aad iskoolkeeda marna anuu waxbarashadeeda u baahan ka baaqanay. marka horta marka ugu horeysa aad ugu mahadcelina maadaama ay mahadcelisay habeentii ugu horeysa aqoolaha hadlay subaxeedana ay dabal qaaday in ay dadaysid subaxina ay keentay. marka ugu horeysa aad ka mahadcelina gudoomiyaha degmada Waaberi ayaa ka hadashay muhiimadda kulankani in waaxda 1 Maarch 20 December iyo maamulka degmada Waaberi ee si wada jir ah u soo diyaariyeen oo aan ugu talagalnay si aan u wada duceysano ana u tusno haddii shacabka iyo maamulkiisa isku tiirsanaadaan wax badan inaan qaban karno. shacabka halkan degan ee maanta caawa meesha aan halkan fadhino waxay ka daaleen dhiiga daadanayo, waa xaqiiqo jirto. dhiiga daadanayo waxay uga daaleen waxay tahay hawada qof kasto halkan fadhiyo ama se dadka yimid cid la baaray ma jirin, amni laga cabsanayo ma lahayn, geed hoostiisa la fadhiya. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamul gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa tilmaamay in dadka reer Waaberi ay mudan yihiin ku dayasho. runtiina in afur noocaan oo kale la isugu yimaado oo la isdhex galana waa qayb amniga ka mid ah. haddii dadka deegaanku isku xiran yihiin intiinaan la wada yaqaanana wax cadow ah iyo dad dhibaato geysanayo idin soo dhex galaya ma jirto. annagana caawa waxaan halkan idinkula fadhino oo saacado idinkula joogno cabsi aan ka qabno ma ahan, waa kalsooni aan ku qabno dhexdiina inaan shacabkii aan matalayno inaan soo dhex galno oo la afurno. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriso waxa uu sheegay in shacabka la'aantooda aan horumar la sameyn karin. maamulka gobolku waa ka go'an tahay magaalada in la horumariyo. magaalada si loo horumariyana waxa kaliya horumarin kara bulshadeeda. bulshada si ay u horumarisana bulshadu waxay ka kooban tahay shakhsi, waxay ka kooban tahay qoys, waxay ka kooban tahay xaafad iyo dad isu tagay kadibna horumarka dawladnimada meeshaas uu ka yimaadaa. dawlad aan bulsho lahayn ma jirto. marka waxaan rabnaa madaxda qaranka iyo madaxda maamulkaba inay u soo duceysaan in ilaahay xilalka aan hayno noo sahlo, in ilaahayna tuso wadada saxda ah oo sinaan iyo cadaalad bulshada aan ku maamulno. waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu garab istaagtaan wax alaale wixii wanaag aan qabanayno, wixii dhaliilaha aad qabtaan aad si saraaxad leh noogu soo jeedisaan. waxaan u joogno waxay tahay in wax la saxo. maamul iyo hoggaan micnihiisu waxa waaye sidee bulshada loo gaarsiiyaa meesha ay istaasho. si loo gaarsiiyana waxay u baahan tahay dhammaan caqabadaha iyo dhaliilaha jiro la saxo, horumarkana meeshaas ka yimaada. annaga waxaan idin ballan qaadaynaa inaan noqono maamulkii isla xisaabtanka, maamulkii shacabka, maamulkii meesha u yeerataan idinkugu imaanayo, bulshadiina dhex galayo. Nuur Saciid Taaliil, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada